أنا قلت أوجانو سلقفنا إيه وحنا سمينا أي سمح في عنا هاي أن قياسنا عريسك يا حنونك يا بينك أي كوهي صودتك وما قبله ويحنون سريان ويدمقنا ويجريه داوين وبهيه haddana waa dhaqan waxaani waa dhaqan diin maaha oo darbigeena ugu dheentay aayadda Ilaahay yiri waa dhaqan uraya oo liita weeye kana soo horjeeda bini aadamnimada waa dhaqan aan wax garowshiya lahayn inaba halakaati waa dhaqan xadgudub ku ah karaamada qofka bini aadamka nin abwaan maxamed hiirad ina taqaaniin baan u malaynayaa ayaa gabay tiri marka waxaan rabaa tixyar inaan ka soo qaato wuxuu ku suu cabiray arrintan wuxuu yidhi dad sokeeye saafi ahoo soo jireynala ah oo aan socdaal noogu iman saafir iyo geedi oo nooga socon meel kaloo ciidda nala saaya oo diinta saami u leh oo sugaya tawxiidka sunno iyo salaad farad ah kuwa nala sujuudaya oo saalixiin wada ah oo suufi iyo sheekh leh iyo qaar saraakiil ah oo saajacnimo sheegtay sikhinimo kuwa lagu yaqaan soorta hurideeda sugaan iyo abwaanimo kuwa saatir ugu deeqay oo suurad iyo nagala mida sawdka iyo caado midab surub ah sanqaroorka iyo seenaxtimo oo ah sogsogyada saraxa taagan leh siman dhammaantoodba kuwa aan nala ka soocayn sawrac iyo fiiro sumcad xumo maxaa loogu yiri waa sab iyo naaqus awal maxamed hiirad wuxuu ku daray dadka kale sancada kii yaqaan wuu sudburiyaaye bilidaa la siiyaa martabad saaran abidkoodii innagana midkii saartuma soo dhoweyn mudane saarka kuwa tuma maxaan ka wada adduunka ilbaxnimada maanta aan sheegnay nalka aan u jeedno wuxuu ka soo bilowday waxa la oran jiray industrial revolution kacdoonkii maxaa la yidhahdaa warshadaynta waxaa bilaabay nimanka la yidhahdaa blacksmith ninka birta tumaa bilaabay tumaalaha bilaabay waxaa ku xigay nimanka la oran jiray adduunka maanta nimanka la yidhahdo goldsmith waa garanta soo maa waxaa jira haddaad tagtaan london magaalada london adduunka meelaha ganacsiga ugu waaweyn jidadka mid waxaa leedahay wall street waa taqaan Soomaa wuxuu ku yaalaa Mareykan New York kan ku xiga wuxuu ku yaalaa London waxaa leedahay Lombard Street wuxuu ka yimid family oran jiray Lombardi family ma Talyaani ahayn birta tuma the Medici family waxay ahaayeen dadka birta tuma ay ahaayeen horumarka adduunku gaarayna horseed bay ka ahaayeen innagana geel jiraha oo ninka adduunka ugu caajisana ayaa u karaamad badan geel jir waxa ma qabto hasha ayadu daba socdaa markii geed harsana uu la harsadaa waa la seexdaa habeenkina waa soo hooyaa maxaa isaga sharaf u yeelay kan karaamada u diiday may sheegi kartaa su-aasha waxaa weeye dadkani maxay galabsadeen middan bay galeen maxaa qiil ah oon u haynaa ficilkan foosha xun maxaa qiil aan u haynaa waxaan dhegaysan jiray barnaamijkii BBC oran jiray qursu qiil maleey wax astan sooma qiil ma hayno diin ma aha
حدا وفرصة حتى بني آدم ما دقوا ونعكسر ما هو وقتي هدينا نقيله هاي المركة محاين ودي جدا محاين كور تاجن إن السيدة أي تاي ودبته أواجهنه أو لا تقالنه محاين كور تاجن وإحنا كور تاجن بتشران إنك إنه كل حرام تاهي إخلاص نبذ إنه iyo inaanu si dhab ah oon hadal ahayn oo af ahayn afka baarkiisa aan ahayn inay nooga timaado waxaan aaminsanahay haddii taasi ay dhacdana ilaahay kuma aha inuu si sahlan u bedelo dhaqankan fooshaxo laakiin inaga naga timaada how painful in badan anaga mid wax laga yaabaa inaan u haysan waxa inay dib weyn ba tahayba حنوك انت الأجية وحول الأجية اللي دي شيء سأقدر أنتو هل ساعد هل معلن متجان نقو يتما هل معلن نقو visualize مركا مسكح هذا القياس سيدا عاد نقو نكرتو وحكوكو إيمان كرا كبيسة كشو put yourself in his shoes وحاليا بلا نشيء جيا وحن ترجمان وحن ترقله هذا مكان international وحن يرون ترين وحن نوتر جدا ذاك الصومالي ده وشيء جانا يا كده بدأ جوجني كيس كاي شيء جانا يا إنه صحيح هاي لغة ده إيه جيا هذه الشيء جيا كوجو فينا وبقرة وسلطان ماذا أيها وحي الشيء جانا إنه بتجيهين يتبالي markii danina gashay wayna la fiicantahay waan isticmaalayn aan sheegayaa xero jaala laga shaqeeyay waan tagay xero jaale hadda goor waa idin sheegay experience ka xero jaala idin sheegay xero jaala markaan tagay dadkaan la shiray way ii yimaadeen odayaal baa hadlayay waxayna ka hadlayeen dhibta lagu hayo dareenkooda ii soo gudbinayeen ii cabirayeen waxay yiraahdeen waxa kale iska day baabuurtu waxay istaagtaa markay sagaara sulaya ay raadinayaan anigu marka dibigu ma hayn odayaasha ila hadlayay kunta jiray ahaayeen ladan jiray ahaayeen maskaxdooda waa suubsantay waxba kama bedeli kara anigu waxa laakiin dibta igu hayay waxay ahayd waxa markay hadlayeen ag taagnaa wiilal yar yar oo 10 jira 5 jira shan sano jira waa innocent dambi male laakiin waxa lagu barbaarinayay oo dhagtiisu ku dhacaysay mar walba inuu liiday inuu liid yahay inuu xu yahay inuu dadka la sinay this is what's painful taawe taxanuunka badan waxa jira noloshaada waxyaabo badan oo kugu reeba xasuus dib badan waxa la indelible marks masaxdaada ku reeba shaqada qaranka waxaan ka hajay maraahad cadaado aan xasuustaa ardayda wiil yar baa ka mid ahaa oo 10 jir meelahaas 5 jir 6 jir meelahaas 7 jir 8 jir meelahaas arday wuxuu ahaa qurux badan bright brilliant dadka ugu fiican waan jeclaaday wiilka marka ardayda wad kala jeceshahay u kala fiican yihiin baad u kala jeclaanaysaa maanta ma dhowr bira waxa waay wiilkii iskuulka ka waay waxaan ku leeyahay wiilkii hebel ahaa meeyay kii ag fadhiyay baa wuxuu yiri macallin midgaankiya macallin midgaankiya marka calaamadda uu leeyahay wiilka yarkahay maskaxdiisa quruxdiisa aqoontiisa inuu kulli galaaska u fiican yahay ma muuqato
وحمود وقبيل كيس walaalkay waan xasuustaa markaan iskuulka dhiganayay waxay u galaasahaa in la oran jiray Muuse Cali Buraad I hope inuu maanta meel fiican joogo ilaahay idinkiisa Muuse ilma yar baan ahay markuu galaaska soo galo markaan galaaska waxaan xasuustaa galaaska Brimo ilaa galaaska afraad waagaagii waxaan ku dhigi jiray Carabi lagu dhigi jiray wax markuu galaaska soo galo صورة واحد يقول شيء الكلب في الفصل وقال هو قرأت عنه واحد تاي يا وحتى هذا محي أقون تو وحرين هدي ما نقول قرية تاس سبب أقون ويانا يا موسى علي برا سبب سكول ديانا يا كالسوري تهلك بوهلا يا وحدكتو ويكارا يا وحبر الشرع marka idinka sabab waa anaga sabab waa inay ka hara waxbarashada maxaa sameyn karaa marka what can we do today maxaa maanta sameyn karaa maxayna la gudbo tan koowaad saan sheegnay waxa weeye atonement ilaahay aan toobad keenno kana barino dambi dhaaf tan koowaad haddaan aaminsanahay inaan dambi galay tan labaad waxaan u baahannahay hadal lama rabo dadka circumstance-kooda xaaladda ayaga ku weegaarsan xaaladooda in wax laga bedelaa loo baahan yahay in wax badan laga bedelo xaaladooda ayaa la rabaa waxaan u baahannahay xaaladooda dhaqaale inaan wax ka bedelno dhaqaale wax badan buu bedelaa waan ognahay kan lacagta leh darajada leh oo reerkaasi lamid maaha kan miskiinka ah ee suuqa jooga access buu yeelanayaa waxaan ogaanaa waxaani inuu saashay ku base garaysan yahay inuu yahay socio economic problem sababtoo ah markii miyiga la joogay oon miyiga deganayna xolama ay lahayn waad ogtihiin ama ugaaratay ahaayeen wax kale ay subin jireen dhaqankii miyiga yoolay ayaa magaalada keenay marka miyigiina xoolo kuma lahayn magaaladana xoolo kuma lahayn so problem waa xaalad dib badan weeye annaga ka xukuumad ahaan marka hadal maaha boolis aan ka yeelanaynaa waa nala kula xisaabtamaya tawris waxaa weeye dhulka dadkaani degan yihiin in horumarkiisa wax laga qabto anu xero jaalan example ah xero jaalan maanta waxaan ugu bashaaraynayaa inay ceelna helayaan ceel loo allocate gareeyay iskuulkii loo allocate gareeyay iskuulkii ceel kaga codsan labada way helayaan in marka xaaladooda iyo meesha ay ku nool yihiin in isbedel dhabi ka yimaado anuu madaxweyne ahaan waa kula xisaabtamaya wasiirada waan ogyahay waan u sheegay in shaqada dawladda ay ku yeeshaan tixgelin gaar ah wasiirka shaqada waa naga maqan yahay dardaarankiisu wuxuu arrintay ka hadlayeen suldaan ka hadlayay oo ah waad ogaan doontaa haddaad maqashaan shaqo dawladeed oo la arftaas garaynayo raadiyaha ka haysa oo aan la oran waxaa mudnaan gaar la siinayaa beeraha la hayb sooco waxba kama jiraan haddii ay soo heli waayaan dawladdu wasiiradu agaasimayaashu hadday soo heli waayaan anaa soo helaya oo aqaan meesha jooga waa soo helayna dadkaas kontraadyada dawladdu bixiso in badan anu ma bixinaba hay'adaha bixiya waan ku baraarujinaya hay'aduhu inala joogaan baa ficnaan lahayn kontraadyada dawladdu ay bixinayso haddii kuwa dhaqaale ay jiraanna in tixgelin gaara iyo kooti gaara la siiyo ay u weeyeen siyaasadda dawladdeedu meemul way ka hadashay iskoorshbiya laga hadlaayay
scholarship ha noqoto يعني military ha noqoto police ha noqoto iyadana in koota gaara oo go'an ay yeeshaan yaa rajeen insha Allah waxaan idin sheegayaa adduunka waxaan la bedeli karin ma jiraan nin walaalkay wuxuu ka hadlayay dadka nigriska ah Mareykanka afartan sano ka hor 30 sano ka hor waxaa jiray Mareykanka Southkiis koonfurta Mareykan waxa la yiraahdaa koonfurta Mareykan Southka waxaa ka jiray wax loo jeeray Jim Crow law dadka madowga waxa ma ahayn waxna looma ogolayn inay xataa voodaan wala diidi jiray maanta Mareykan waxaa madaxweyne ka Barack Obama wiil aabii ka tagay Kenya oo Luwa ah first generation aabii baa tagay qaraabadiisa ku nool Mareykan ee ku nool Kenya magaciisuna maaha John Smith waa Barack Obama ayaa wadanka adduunka ugu xoog badan ee Mareykan maanta madaxweyne ka waxayna ka rabaa waxa weeye marka maanta waxaan ma bedeli karno suldaanka waxa la hal isguursan maysaa warabna gabriina ma siinaysa laakiin aniga waxaan rabaa 30 sano ka bacdi 40 sano ka bacdi meesha maanta aan taaganahay in wiil midgaani joogo waxana ilaahay horta kuma aha waana ka dhigi karaa annaga marka waxaan rabnaa maanta dhagax dhig weeye tani we are laying the foundation today dhagax dhiga weeye maanta inaanu samayno si taas u hirgasho maybe 40 sano ka bacdi ama 30 sano ka bacdi waxaan rabaa marka hadal inaan iraahdo dadkan idinka inaan la hadlo idin sheego waa run dambiga inta badan ma lihidin laakiin wuxuu waa ku leedahay waxaad ku leedahay waxa weeye dulmi aad ogtay inuu dulmi yahay inaad aqbashaan waa inaad diidaan ha aqbalinina ka dagaalama ku dhinta foodo horseedi mayo laakiin inaad iska celisaan baa rabaa dadka in dulmiyay waxaan ku soo gabagabaynayaa suldaan ka hadlay Abdisalaan wuxuu soo qaatay ninka la oran jiray Ayax Maxamed Owre waa taqaanaa Soomaa Ayax wuxuu diiday in lagu gabood falo niman qaraabo nahay oo reer Samantar Khalaf la yiraahdo ayuu xoogaa dulmi ka tirsaday inkastoo rag badan oo fiican jireen cigaal caymay ka daba tageen markii dambe loo tagay ma maqasheen Ayax tag ee la reeb ma maqasheen Ayax Maxamed Owre Ayax wuxuu yiri dabqab dhaafay bay laba qabiil qaran ku weydaay qabiil bahaabil markuu qoonsado dilay qabaltii nikax naagaha qaatay meherkii qabaanima ninkii iga damciyo ii qasaal marada qadarta ilaa iguma qaban goodhi xirada wariya aniga xaaja aan qaban lagu soo qaaday waxaan ka soo wadaa marka gabaygiisa soo sii wata wuxuu ninka la yiraahdo Ayax Maxamed Owre wala niman quraan dhigan nin baan qaalin noqon waayeen dhigan wala qaaxo nima hayso waan soo qufici waayeen wala reer qorfiya haw tagaan oon ku qaban waayeen wala naaqabow ka heshaan qabasho ka deeyeen wala tuug la daba qayliyaan qofka rogi waayeen intaana u jeedaa wala niman isqabanow
wanaag igama sii qaadin waxaan u baahanahay marka waxaa weeye 2 3 4 5 6 ayaa maxamed dhowr oo kale idinka kaga baahan inta haddaan helo kulligeena aan dadaalo waxaan rajaynayaa rabitaankeenna in ilaahay noo aqbalo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.